Wasiirka Warfaafinta Somaliland Cabdullaahi Faarax ayaa safar shaqo ugu baxay magaalada Jabuuti halkaas oo ku soo dhaweeyay safiirka Somaliland oo jooga magaalada Cabdifataax Said Axmed. Wasiirka ayaa sheegay in inta uu joogo magaalada Jabuuti uu kulamo la yeelan doono wasiirka warfaafinta ee dawladda Jabuuti iyo xubno kale waxaana halkaas ugu horreyn ka hadlay safiirka Somaliland oo jooga magaalada Jabuuti Cabdifataax Said Axmed waxaanu yiri waxaan halkan jamhuuriyadda Jabuuti ku soo dhaweynaa wasiirka wacyigelinta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Somaliland wasiir Cabdiraxmaan oo leenahay kusoo dhawow jamhuuriyadda Jabuuti oo hawl shaqo u yimid oo hawl qaran u yimid wasiir waxaan kugu soo dhaweynayaa gacmo furan dalkan waa dal jaarnahay oo Somaliland iyo Jabuuti laba dal oo walaala sad ka war hayso sidoo kale wasiirka warfaafinta Somaliland Cabdullaahi Faarax oo isna halkaas ka hadlay ayaa yiri aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa safiirkeena walba gaar ahaan Cabdifataax iyo dadka reer Jabuuti sida fiican ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Jabuuti sidoo safiirku sheegay waxaan halkan u imi hawl qaran oo aan doonayo in aan la kulmo wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta iyo isgaarsiinta ee Jabuuti iyo wasiirka kaleba waa markii horeysay aan filayo inay dhici doonto inaynu xiriir xagga isgaarsiinta iyo dhaqanka ka wada yeelano jamhuuriyadda Jabuuti haddii alla yiraahdo wixii ka soo baxay iyo waxyaabihii aan isla soo qaadnana gadaal baan ka soo sheegi doonaa hadda la yiraahdo